waxaan ku bilaabayaa magaca Eebe, naxariista guud iyo mid gaar ahaaneedba leh. Mahad ideelkeed Eebbe weyn u sugnaatay. Nabadgelyo korkiina ha ahaato iyo naxariista Eebbe, wacnaan idilkiinba meel walbo dunida ka joogtaan. Ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta oo uu marti inoogu yahay ustaaduna Sheekh Cabdirasaaq Cabdullaahi Xasan Dheere oo inoo soo gudbin doono kelimad yar oo ku saabsan fadliga bisha barakeysan ee Ramadaan. Ustaaduna falyatafadal mashkuuran ma'juuran. بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام الله عليكم ورحمته وبركاته حنربي إن شاء الله تعالى إن وحكده فضائش الصومك وليه فضائش الصومك ويفرب ذنيهين وحاكم ذا إن صومك أجرك لجه ليه ويهي ميد أن ترى لهين أجرك الصومك إنه يهي ميد أن حد لهين وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتلمامي وها كل عمل ابن آدم وحديث القدس قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به حديث وحوت المامي بين آدمك عمل كست أصغى إسكال وصميه معناها أجرك وكهلي ومدو يقانو وأصغى أوليه لكن صوم كمي أنا إسكاله يري الله سبحانه وتعالى أنا كأبا المريني رواية دي كلا وحيه مسلمنا كل عمل ابن آدم يضاعف عمل كستو بين آدم كأوليه هاي والله بالله الحسنة بعشر أمثالها هل كوناك وقفك أوسميه وحوهليا طبعا لابلابك طبعا جرب الله سيلا بالله إلى 700 ضعف إلى تضرب بقل أو جرب الله لابي وقفك وقرني يا مركع عملك أوسميه انت اوكهليو طبعا جرب الله من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها والله قصي بديا إلى تضرب بقل يلوسي جارسية لكن صوم كما يساس معه عمل كاسون كوهو سميسي intaas iyo in ka badan oon tiro iyo xad lahayn buu Allah subhanahu wa ta'ala qofka ku abaalmarinay markuu fadiilo aad u weyn sidoo kale wasiyaamu junna fadaa'ishiisa waxa kamid ah soonka inuu yahay gaashaan oo gaashaan muxuu yahay waa waxa la isaga difaaco waxyaabaha hubka ama seef ha noqdo ama xabad ha noqdo gaashaan oo muxuu soonka ka difaacayaa wax kasta oo xumaan ah ayuu difaac kaaga yahay oo naar ku geyn lahaa sababtoo waa cibaada laga bilaabo markuu fajarka salaada subax lagu galo laga soo bilaabo ilaa maghribkii dhowr iyo 10 saac iyo waxaad ku dhex jirtaa cibaadadaas oo ku diideyso inaad xumaan la timaadid marka gaashaan buu ku gaashaan ayuu ku yahay xumaan oo dhan iyo ka gaashaamaya ka celinaya xumaantaas oo naar iyo meel ku geyn lahayd ayuu gaashaan kaagay fadaa'isha uu leeyahay soomka waxa kamid ah inuu yahay in la isugu dhaafo dambiyada dambi dhaaf laga yahay oo xadiiska taqaaneen oo ahaa as-salawaatu al-khams wal-jum'atu ila al-jum'a wa ramadaan ila ramadaan mukaffiratun lima baynahun idha ijtunibat al-kaba'ir salaadaha shanta salaad kastaba markaad tukato salaadaas kadib dambigii aad la timid waxa lagu dhaafayaa salaada kale oo ku xigto ayaa lagu dhaafay salaada jumcaha oo tukatay jumcaha dambe salaadaas jumcaha tukatay ilaa jumcaha dambe intuu u dhaxay salaada dambe jumcaha lagu dhaafay ramadaankana waa sidoo kale ramadaanka hadda ma taqaanay aan joogno kii ka horeeyay intii dambi ahay oo soo sameysay kan baa lagu dhaafay ramadaankii hore ilaa ramadaanka laga gaaro kan wuxuu u yahay dambi dhaaf marka wixii hore dhan buu dambi dhaafay waxa dhici karta qofka marka inuu isweydiiyo oo haddii shantii salaadood lagu dhaafay wixii dambi ah oo salaada ka dambeysay dhaafayso jumcada kale ay ii dhaafayso oo dambi dhaaf aan ku helayo ramadaanka maxaa la ii dhaafay oo su'aal meesha ku jirto waxaad ogaataa marka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay qofka inuu salaadiisa ka baxo salaadaha caadiga uu tukanayo shanta ah markuu tukanayo inuu salaada ka baxo asagoo salaadiisii aan loo qorin ilaa 10 meelood meel mooyaan ama 9 meelood meel mooyaan markii salaadiisii 10 loo qaybiyo wuxuu dhumiyay 9 buu iska dhumiyay hal ajiro kaliya loo qoray 9 markii loo qaybiyo salaadiisii wuxuu dhumiyay 8 hal buu helay markii loo qaybiyo subuucaha buu 7 loo qaybiyo yu 6 dhumiyay hal buu helay sudusaha خمسها ربعها ثلثها إلا أحدث أصيب وذي إلى النص أكهل يقف كسلاديس marka salaadahaadii aad tukanaysay yaa mataqaanaa nuqsaan ku jirta dadka markay salaada ku wada jiraan isku ajir looma wada qoray sababta maxay tahay marka qofkan salaada tukanayo salaadiisii kaamil ma aha oo khushuuceedii ma dhamaystirno rukuucdeedii iyo sujuudeedii waajibaadkii laga rabay qofkii iyo tumaaninadii xasalkii
uma dhamaystirno salaad taam ah marka salaadii marka wuxuu ka helayaa wax yar buu ka helayaa oo dunuubtii loogu talagalay aan mataqaanaa kaafinayn inay dhaafaan in yar buu helay khushuuc la'aanta iyo rukuucdeedii iyo sujuudeedii iyo tumaaninadii oon la dhamaystirin waad aragteen dadka tukanayo in badanoo kamid ah rukuucdoodii iyo sujuudooda waxbaa ka khaldan dad badanoo naga mid ah annaga markaan salaada galno waad ogtihiin waxaan bilaabaynaa ganacsi iyo badeeca hebel waa shay hebel ma haysatid uu kaa go-an yahay shay hebel baa go-an hadda markii allahu akbar la yidhahdo meeshii faatixadii iyo istiftaaxii la geli lahaa dad qaar baa laga yaabaaba inay galaan ganacsi iyo shaydaankii waxbuu ku xasuusinaya shay hebel uu kaa go-an yahay shay hebel ma haysatid shay hebel saan buu yahay shay hebel kan buu yahay doonta soo socotaa markab soo socdo ama gaadhiga soo socdo alaab hebel xagee waxa buu ku gelinayaa sheekaad gelaysa laga yaabo inaad amin dambe ku baraarugtid salaadihiiyoba gabagaba ah ama dhowba inaad ku baraarugtid shaydaanka marka waa cadow markii alla aad ugu dhowdahay sujuudda wey waxaa laga yaabaa inuu ku xasuusiyo qof aad kula haydayn uu ku yidhaha waryaa hebel muxuu kugu akhriyey mataqaanaay lacagta intaasuu kaa qabaa hadda markaa salaada ka baxda sii mar waa markaa sujuudsaneed marka salaadaadii lagugu dambi dhaafi lahaa yaa waxaa kaaga furmaya khushuuc la'aan iyo waa mataqaana taamnimo la'aan wixii lagugu dhaafi lahaa heer aysan gaarin oo wax yar baad ka xasilinaysaa salaadii jimcihii waa sidii oo kale marka ramadaan marka see lagugu dhaafaya waxyaabihii salaadahaadii shanta ahaa iyo salaadii jimcihii ay gudi waayeen yaa ramadaan lagugu dhaafayaa marka waa fursad ilaahay uu ku siiyey bishan ramadaan inta lagu jiro oo bisha soonka aad soomayso salaadahaadii shantaha kowdhe jumcooyinkii cibaadadii soonkii laftiisii wixii oo dhan ku dadaal ha lagugu dhaafo sanadkaasoo dhan dembigii ahaa ha lagugu dhaafo waxaa ka mid ah fadaa'isha uu leeyahay soomka in soomka laftiis uu qofka soomo maalinta qiyaamo u shafeecay حديثك التلمامي النبي صلى الله عليه وسلم وحيدي الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه مركا قرآنك يصومك لبضب ويشفاعي قفك صاحبك سوه صومي يقفك قرآنك آخرية وصلاة الليل كنت كذي أشفاعي مع أنت القيامة صومك محولي يا مركا ربي قيو وحن أدي ذا قفك انتدي وعولي لها شهودي سيبان أديد إلى يقول شفاع بلا ساكو ويدين يوم وأنت قيم وفضيلة وحاكم إذا فضائش وصوم كلية هاي إن قفك الصوم هايست الضمانات إنه كجري دونه الباب كمذا الباب هذا الجنة الله يقان الريان الباب كاس عد كاستمجش وحاجة لا يدتك صائمين ته دتك صوموا باقل مركب واحد هايست الضمانات إن الباب كاس كجري سد وفضيلة جونية أو صوم كأولي هاي صوم كأولي marka fadaa'isha soomka aad bay u tira badan yihiin ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu naga dhigo kuwa helo soomka ajirkiisa farada badan ee xad ka lahayn ilaahay inuu nagu daro kuwa soomka loogu dambi dhaafayo wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu آمين 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 الله نو أقبل الدعاء هذا نجنا أقبل أعماش بيش بركيسن رمضان أجر يا حسنات أن للسوق بكرن إبوينها كاسي أستاذنا وجزاك الله خيرا أحسن الجزاء